والله ياو وحنا هذا مفرح صراحة إن قبيلي اسبدل كيس ومال عندنا شيء كم موضوع سو اسبدل دور متهدي halkan maalin hore soo maray anoo ka yimi awdal dalka intiisa kalena waa soo dhameeyey saaxil togdheer sool iyo sanaag awdalna horaan u soo maray waxaa ka muuqata in isbeddelkaas shacbigu ka midaysan yahay boqolkiiba boqol uu ka midaysan yahay waxaanan maanta yaqiinsaday إن قبيلين هجامين يسوي بدل كاس. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. قبل كني وقبل تاريخ وين. وضد بدنو تاريخ وين هنا كسوتشيدو. مرك الله يهضم يوري اللي ما يجي قبيلته. وحنا قفل أن أنت تمعت إلى الله ونحرسته. هنا أنا محمد عليه. maanta Soomaaliland midnimo u baahan tahay isbeddelkaas macnihiisu waxa weeye in kala qaybsanaanta shacbiga ay midnimo ku bedelo sababtoo ma rabno horumar la'aanta inaynu horumar ku bedelo cadaalad darrada inaynu cadaalad ku bedelo waxaynu doonaynaa in amnigeena hoos u dhacay aynu ku bedelo inaynu amnigeena adkaysano iyo ciidankeena walaalayaal gobolkani waa gobol horumarineed oo si guud dhaqaalaha ugu wanaagsan gaar ahaan beeraha tiirka saddexaad ee barnaamijka xisbigu wuxuu kor u qaadayaa wax soo saarkeena waxaa laga yaabaa sidaynu u tabcano beeraha inay tahay sidaynu aabayaasheen iyo awowyaasheen ka dhaxleen laakiin adduunku wuu isbedelay dhul yar baa wax badan laga soo saari karaa marka insha allahu waxaa barnaamijka ku xusan dadka beeralayda ama dhulka beeraha ku wanaagsan inaynu tacabka ka taageerno si ay wax soo saar badan soo saaraan gabiley waa gobol dad badan oo dhalinyaro u badan dhallinyaraduna isboortiga ku fiican tahay waxaanu doonaynaa isboortiga inaanu kor u qaadno si aanu moo faarax badan u soo saarno gobolnimada gabiiley way idinku raagtay kulmiya 14 sano dalka xukumayay waanu ku guuldarraysay inuu gobolnimadii hirgeliyey gabiiley maanta waxay saaran tahay albaabka waxaana hayaa oo riixaya ninaa garanaysaan waxay dhimaan laabsaara insha allah iyaduna way dhow yahay gobolnimadii gabiiley waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa shacbiga dhallinyarada u badan iyo haweenka in isbeddelku ka muuqdo Somalilandna waxay ku badbaadaysaa maanta isbeddelkaas minna xukuumadda ku eegin mayno wax kale ballanqaadkii ummadda ay u qaaday iyo hoggaamintii ku fashilantay iyadii xisbigeeduba waa kaga soo hadhay awooddii inay calanka kulmeeyo meelaan cidijooyin ka taagtaagto aqala dushood iyo meherada dushood waxaa kaloo la sheegayaa inay markay shakiyeen ay doonayaan in kaalarka idinka iibsadaan marka kaalarkana ka ilaashada haddii la yidhaahdo